khilaafka sii fogaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka ama maamul goboleedka Jubbaland xaruntiisa ku meel gaarka ay tahay Kismaayo runtii wuxuu u muuqdaa mid yeelan doona waji kale oo cusub oo runtii la soo baxa daruufo iyo marxalado siyaasadeed oo hor leh kuwaasoo gebi ahaanba hareeya muddada la rabay inay qabsoonto doorashada bilooyinka ka dhiman tahay heer federaal maadaama ay federaalku markii hore qorsheeyeen wax la yiraahdo New Jubbaland oo ciidamo xoog leh lagu daadgureeyay dhanka iyo gedo oo kamida Jubbaland lagu dagaalamay beled Xaawo oo lagu dagaalamay meelo kale oo kamid sida Baardheere iyo Doolo intuba runtii isla markaana ay dawladdu xagga beled Xaawo ay gacanta ku dhigtay ciidamo joogeen dawladda kamida haddana in madaxweynihii Soomaaliya oo safar runtii u soo dhaqaaqo dhinaca Kismaayo oo halka ay isku arkaan madaxweynihii Jubbaland Axmed Madoobe waxa weeyaan siyaasad cakiran oo runtii sawiraysa qaabka jahwareerka siyaasadeed ee dalka ka jira waxayna macno weyn u sameynaysaa khilaafka labada dhinac dhex yaala oo halkaas waxaa laga sawran karaa inuu jiro cadaadis aan shacabku ka warhayn oo labada dhinacba haysta cadaadiskaas oo u badan inay wada hadlaan labada dhinac Jubbaland iyo federaalka oo ay gaaraan xal iyadoo aan la wajihin dhismaha maamul cusub oo la yiraahdo Jubbaland oo laga sameeyo gobollo kamid ah Jubbaland dawladda federaalka cadaadisyada waxay kaga yimaadeen ayna u badan tahay deeq bixiyaasha ay ku tiirsan tahay safaaradaha kule gudaha Muqdisho waxaana aad u riixaya dawladaha dariska Ethiopia iyo Kenya oo u arkaya fadqalala siyaasadeed iyo xaalad dhibaato iyo dabargoyn ku ah amniga labada dal in la sameeyo maamul cusub oo New Jubbaland la yiraahdo oo la saldhigta gedo mid kalena uu fadhiyo oo Old Jubbaland ah Kismaayo waxay u arkeen inay tahay xasrad dhinaca xuduudaha keeni karta dhibaatooyin fara badan safaradii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh uu ku tagay Addis Ababa waxay ahaayeen kuwa si toos ah looga hadlay oo madaxda Ethiopia Abiy uu kamid yahay oo madaxweynuhu u sheegay in loo baahan yahay in maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay Kismaayo Axmed Madoobe uu madaxweynaha u yahay iyo dawladda federaalka inay wada hadal ku xaliyaan arrinka u dhaxeeya waxayna dawladda Ethiopia aad iyo aad madaxweynaha Soomaaliya ugu sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalada ka dhacaya xuduudda gaar ahaan gobolka Gedo waxaana ay aad dawladda Ethiopia muhiimad u siisay inaanay dawladda federaalka abuurin nidaamyo sida jabhada oo qaar dawladdu ku tiirsan qaarna ka soo horjeedaan deetana ay dhibaatooyin xagga amni ay dhacaan Kenya dhankeedana runtii markii uu dagaalka beled Xaawo dhacay culays badan oo fuulay oo hab deegaan iyo hab siyaasadeed iyo hab amni intuba ah waxay iyaduna u aragtay in la abuuro wax la yiraahdo New Jubbaland inay tahay fadqalala siyaasadeed oo kale oo akiri karta xasiloonida xuduudaha sababi kartana runtii dhibaatooyin hor leh sida awgeed ayaa labada dawladood ee dariska ah saraakiishii u sareystay dhinaca nabad sugidda ay garwadeen uga noqdeen qaybna uga ahaayeen wada hadalkii ku qabsoomay bishan gudaha magaalada Kismaayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh wuxuu isagu mar walba u arkayay fursad in uu gaaro Kismaayo oo uu dunida u sawiro runtii sida in dawladda federaalka aysan maadaama ay la kulantay in lagu dhaliilay inay ciidamo iyo xabad iyo dagaal iyo waxa dawladda ay wax ku raadinayso dhinaca kale wuxuu doonayay beesha caalamka inuu tuso muuqaal ah ama sawir ah in wada hadalna uu wax ku raadinayo Axmedna wuxuu ka cararayay in loo arko kan diidan wada hadalka mar walbana caqabada dhankiisa ka imaanayso diidana waa tii lagu soo dhaweeyay madaxweynaha Kismaayo oo ka degay
waxaadna dareemaysaa labadooduba madaxweyne xasan iyo madaxweyne axmed madoobe labaduba in rabitaankooda iyo go-aankooda iyo tanaasul shacab oo soomaaliyeed midna aanay u kulmin daruufo ay labada dhinacba riixayaan oo daqbixiyaasha iyo wadamada daris ka imaanayay waayo ayagoo wada jooga ayay ignore garaynayeen hadday tahay bageska ay leeyihiin ee officialka ee madaxtooyada labada dhinac mid walba kan kale wuu ignore garaynayay wuuna ka fogaanayay waayo haddii uu tanaasul jiro iyo in loo danaynayo shacabka iyo dalka intaa waa laysaga soo dhowaan lahaa shirkuna ma noqon lahayn mid 2 maalmood qaata wuxuu noqon lahaa mid muddo la fadhiyo ilaa xal laga gaaro arinta Jubbaland waayo Jubbaland waa muhiim waa state muhiim waa Soomaaliya dowladda federaalka oo iminka ay doorashadii bilooyin ka harsan tahay haddii ay markiiba wajahdo haddana inay tiraahdo waxaan meel marinayaa qorshahaygii New Jubbaland oo isna waqti kala qaadanaya oo la kulmaya caqabado badan iyo diidmooyin badan iyo khilaafaadyo badanna runtii loona arkayo si toos ah inay tahay arin shaqaaqa siyaasadeed oo la doonayo in lagu yeeraa dib dhigto doorashooyinka iyo wixii la rabay inay qabsoomaan muddadii loo qorsheeyay marka ayaguna israbin bay isugu yimaadeen Kismaayo muddo kooban oo aan ku habboonayn bay wada hadleen waa la ismari waayay waxa la isku mari waayay aniga ma ii aqoonsan ma adiga kuma aqoonsanay ani saasaan rabaa ani macnaha muddo sanado ama sanad ka badan runtii ka hor wixii la isku qabtay madasha la isaga soo dhaqaaqay unbaa haddana mar kale inta la isku yimi intii unbaa haddana la soo dhigtay miiska kadibna waa la laabtay option B ma jirin ama mid inuu tanaasulo ama wax in la xiriyo runtii waxay niyad jab ku noqotay shacabka Soomaaliyeed waayo dowladda durba waxay sheegtay inay dardar gelin doonto dowladda federaalka dhismaha maamulka cusub arintaas ayada ahna waxay kala kulmi doontaa culeysyo badan dowladaha dariska Kenya iyo Ethiopia labadooduna waxa ay xoog saari doonaan inay maaragtay muujiyaan walaac badan oo xagga xuduudahooda ah isla markaana waxay u arki doonaan ayaga inuu u dan yahay maamulka hadda jira Jubbaland iyo dowladda federaalka inay isla jaan qaadaan haddii aanay dhicin oo ciidamada dowladda ka socda si toos ah ee hadda gada jooga kadib Garbaharey lagu dhiso maamul cusub oo Jubbaland ah maamulka isaga ah way adag tahay inuu dhaqaaqo ama uu suura galo sababtan waxa weeyaan waqtigii dowladda federaalka oo gaabisa oo runtii laga yaabo isbedel inuu dhaco iyo tan labaad oo ah uguna muhiimsan wadamada jaadka ah oo runtii u arkaya arinta mid halis ku ah xagga amnigooda marka waxa haatan ka jira dalka siyaasadda ahaana waa in mid walba uu doonayo inuu meel mariyo rabitaankiisa goonida isaga oo sawir uu ku yara dhuumanayo siinaya beesha caalamka mid walba oo hogaamiye shacabkana waxaba loo arkaa kuwa iyagu aan wax fahmin wax garan maaragtay hadba kan safraya ama kan loo safrayo uu sacbatumaya wax macno weyn runtii aanu arkin in dowladdii Soomaaliyeed oo israacaan iyo maamul goboleedyadii ee rabay dalkan inuu isla jaan qaado hal mar oo kor u istaago Axmed Madoobe ciidan badan ayuu haystaa magaalada Kareed ayuu degan yahay badina gobolka Jubbada Hoose ayuu isagu hadda gacanta ku hayaa waliba magaalooyin kamid ah Gado ayaa wali uu saameyn badan ku leeyahay ama maamulkiisu gaarsiisan yahay Jubbada Dhexe waa gobol haatan gacanta ugu jira Al-Shabaab sida awgeed dadku inay u fahmaan kaliya in hal magaalo Kismaayo la yiraahdo iyo hal magaalo oo Beled Xaawo ama maahan waayo waxa meesha kala soocmaya oo uu imaanaya dhantaal xoog leh ku imaanayo waa mustaqbalka jiritaanka Jubbaland oo haddii ay laba madax noqdaan dhici karta in mid walba goobtiisa ay u noqoto meel uu isku badbedelo mar walba oo ninba uga tago kan isaga uu arkayo danta hadday noqoto in la isku daro hadhowna qaadan doonta muddo iyo marxalad kale
iyo jawi kala qaadan kartaa marka lagama eegin maslaxadda Jubbaland lagamana eegin maslaxadda dalka Soomaaliya waxaa kaliya wali jira in la isku maquuninayo rabitaanka siyaasiyiinta sare ee federaalka iyo Jubbaland ee Axmed Madoobe waxayna tan u baahan tahay in siyaasiyiinta mucaaradka ay sameeyaan dadaal dheeri ah oo qaarkood laga helo kuwa dhexdhexaadiyo federaalka iyo Jubbaland oo aanay labada dhinac la kala safan la helo maslaxad ama marxalad runtii lagu badbaadiyo jiritaanka maamulka Jubbaland si uusan laba madax u noqon berrina dadka aan loo kala dhantaalin